وحما وصل كرتا إنا ذا الوكوغي والله وبالله وطلع إنا ذا ناقن إكرم وناقن إكرم هاي استعمال شاولات باتاي انت رتا إسارنانا إساي نين إيمان بس لابد إنه رئيس ومرتي لابد إنه ديق بأهاين بيتر ديق ساسي بيها يقود داديناي adeerde aniga Copenhagen baa inta la igu yimid oo aroos aan iska baranay baa la isii xiraday maalinkii ugu horreysay qadal la ii sameeyay maalinkiiba horaan ka raac inna lillahi wa inna ilaihi waskala seexanaysa adoo qabin ma fahanti anoo qabin baa iskala seexanayay 3 bilood gadaal baan ka meherishay wallahi billahi talaahi waxaan ku yiri ilmaha imaan kara nolol baa imaan karta joog gabadh yahay haddii kale waa kaa tagayaa baan ku yiri Copenhagen baan ku laabanayaa haddii kale ogolow meherka صح adeer bilaa meher baan kula deganaa adigoo xogaa aakhirada u baqay adoo aakhirada u baqay maxaa weeye noloshay haysato mid kale intaan wajiga aad ka arkaysaan ma jirkeeda kala aragteen jirkeeda kala miyaad aragteen aqas naga yaqaan adaa naga yaqaan ayeeyday baa ka jil qoxoon ayeeyday inna lillahi wa inna raaji'uun adeer waayeel weeye waayeel safar iscaan baan ahay ladcaan adeer wiilkeeda 30 jir weeyaan ku yiri dhaarkin maryahan hadda aan u galiyay anigu haarki aqas ninkii dharka ka dhiga ka sheekayn kara adeer dhiiqa hadday jirtay hadda yaa adiga u geenayo way yaa adiga u geenayo way shan naagood baan soo guursaday dhiiqa hadday jirtaan ku yiri dhiiqa hadday jirto waa ayada soo qora ninka inuu dabaal Soomaaliya idin sheega aniga laakiin Ilaahay asturay inaan dabaal hal sano la noolaado laakiin alxamdulillah inta badan xaq shaqo jiray maalintan uu naga maqay habeenkii imaana subaxina uu dhalmi jiray intuu jooga habeenkii cunugaas uga hayn jiray marka kale xataa way caawin jiray ninkan dhanka caawinaad xataa waa ku fiican yahay guriga wax kasto nolosha kaaliska arag because naagtan quruxda badan uu rabaa jecel inuu ku abuuro laakiin jecelku waa quluubiyan ma iska imaanayo yaa jooga marka okay ninka dhahay teleefankeyga farta uga soo dhacdo oo ogeyn waa asaga maalintii aan kala tagna waa kaaga daranay bismillaah duhurtii markii laga baxay aan kala tagna wuu baxay markuu istiraasay waa tuu carray jidkii wuxuu kusii wareeray meeshuu tago dukaan uu joogaa dukaan saas u dhex fadhiya waa la badan yahay dukaanka aniga marka farta uga soo dhacdo teleefankeyga asaga fartiisa ku soo dhacday mi ogo wuxuu leeyahay naag Saleeman baan 2 sano soo qabayo wallahi weligay ayadoon bay ka korbari jirtay naagta weligay anu kama kormarin weligay hal marna kamaan kormarin hadda anigane dadku sheegno ani adiga kormari jirin adkaatay adigana yaa kormari jirin bal hadda meeshaad saaran tahay ka sheeg si toos shar garay barnaamij adeer ana xalaaleeyay u jeedaan xajaas yu maraya fiiri idagayso naagta iga sheekaysay ninkii furay adeer naagta ninkii furay iga sheekaysay oo tiri adigoo kala saxigaaga maana arkin ninkii furay maalmu degan yahay mid kale weligay video lama gelin gaabnida wuxuu igu dhacayaa bay tiri xuduntu igu dhacaya waa nin gaaban oo foorxun laakiin nin aan ku xaragoon karo maanta aan helay bay tiri saasay aniga meediyaha ii keenta naagtan صح sito ma daadu nin laba lafooda ta waxa weeye inta dheer jooga waxa weeye sitoosa wallahi waxaan ku yiri maalinkii meediyaha gelisay waxaan ku yiri aniga nin wadaadaan hay meediyahan ma diga deysid meediyahan iga daa aad geenayso waxay tiri 2 nin hore isoo furay 2 nin hore isoo furay labada nin hal kuma tii xidhay 2 nin hore isoo furay shaashadii adkaatay dadkaana ma wadaan may maqashaan waa ku maqalnaa ku saac 2 nin hore isoo furay tiri midna Mareykan buu joogaa midna halkan labada nin hal nin oo aan la geli karo video kuma jiray tiri nimankii hore caay adeer af 5 wiil baa guriga u joogto laba maskaxda ka xanuunsan tahay oo hadda gaaladu la wareegayso hadda gaalada qaadanaysa ayada u saxiixday oo tiri ma hayn karo ma fahanti cunuga ugu yar oo 4 sano jira maalin walba waa la dilayaa labada maskaxda ka xanuunsan baa dilaysa aadiyad ama cunuga naga dilaan beelay maskaxda ka xanuunsan cunuga ma naga dilaan dadka Swedishka hadda Sweden degan ee dadka u dooda waxaan gaarsiinaynaa in ilmaha yarka ee guriga jooga ee 4 jirka ee ninka maalmo jooga uu dhalay in la dilo maalin walba in la dilo oo dilo cunuga xanuunsan oo maskaxda ka xanuunsan inuu dilo commentiga xir commentiga sitoos xir commentiga adeer balaaya shaashada garaaca comment aadiyad
adeer ayada balaayo waxa meel murug weeye ayada soo farfaart raacsan hawlo bal qaadaysa qarinayay waxa idinkeed waxa dhextaal baan ka dhiganayay hawlo la qarinayay oo waxa weeye ninkan uu qarinayay oo wax badan ceeb badan uu la aamusnaa hawlo badan ina ogeyn ayadaa banaanka keentay waana adeer dhamaystirayaa si toosa habeen walba qayb wey adeer caawana waxay u waalanaysaa aniga saskeyga weeye waa naagtii tiri maxaa isticmaashaa wadaad baa tahay intaa rabtaa isaarnaanaysaaye ninkan iman labadii nin hore isoo martay labada ninba diiq bay ahaayeen bay tardiiq saasay biyaha igu daadinayeen wax ma wasi kartaa inaadan waa ku ogey wallaahi oo bilaahi oo talaa inaadan wax naag qanci karin naag ma qanci kartid nacalad baana ku dhashay bahal xunoo faryarey intaas la egaa wadataa faryarey aan ka ceynin ma kacaayo weligay maara gusaan ka ceynin nacalatul caleyk to maxaa wax wasay maba kacsanaysidee nin kacsanaya wax waso oo wax u raaxeeyo maxaa kacsanay adeer iga degnaagtan kaga yerisiiye waa daalay waxay iga daba hordaysa adeer ayadaa keentay gogasha in laga hadlo ma fahamti wallaahi bilaahi tallaahi inaana been sheegay shaashada garaaca waa kumitiga nin fura shaashada garaaca hal sanaan qabay halkaa sano 6 bilood ayada nadaafadeeda iyo gurigeeda nadaafadeedan ku mashquulsanaa raaxa u timid ma waxa u timid nadaafada u timid dayactir baan u yimid dayactir naga weyna aniga ninaas guursaday ninaa lacag ka qaatay waa dhacay waa ku adeegtay gurigan ku tirtirtay bambarska ilmaha ku bedeshay jikada war ani waa ogahay waa baadil waa waa xaq waa ogahay bixiyay laakiin maanta waa video ogahay gabadhiina leedahay ninka waxa waaye Faraynayso. ninka soo cidiisa Aku lacaya leedahay. galaas biya soo shub inta leeyahay keeni jira waaye mafahant anina ku adeegay soo ogahay ninka cidiisa soo lacaya galaas biya doon inta leeyahay biya keeni jira waaye mafahant aan maanta wuxuu waa aqaan mafahant asoo sanab u eg sanab adoo sanab u eg tiktoka joogis ka rabo oo ku salaamaani oo aad u mahadsantiin hadda tibtobka xataa malyan buufisoo laga rabaa afkiisa uraan uu soo gaaray ma fahanta afkiisa uraan wixii maanta dhacma daawanaysa waxaa la yidhi ninka waa xataa milyuuna ay wasta waa yidhaa la yidhi idaa ay wasta ani waa suuxa ani waa run daama bedeli jir laakiin huufarka shaqadiisa aheeda yes that's right aniga cawaasu socsanayo horta ninkaas firi ninkaas wax badan oo runana waa sheegay wax badan oo been oo ku dar horta huufarka iyo waxyaabo kaleeto run oo meesha hawiye gebi ahaanba tolkayga dhan waxaan leeyahay alxamdulillah dhaha that's why u dhaysin mid qaraa nin waalan baa ka soo fakaday nin waalan baa ilaahay iga soo fakiyo eriye walaalayaalow alxamdulillah dhaha maxaa idinka halaysan wallahi maxaa halaysan nin waalan cadkiisa ilaahay igu reebo hadduu ilaahay kaa reebo waa balaayo kaa harta kheyr kaa harta cadkaasa ilaahay igu reebo cadkaaseeti ilaahay hadeesta saqiirkas miskiinke laakiin gabadhiina malyuun rooble nin waalan oo waxaan ku dhaha ciil qabo oo ay soo bahdishay ay ku adeegatay ee maanta banaanka ka joogtaa dabada laad ka gelisay get out my house ay tiri wiil wacees lacado wuxuu raba inuu dhaho cunuga saara u qabana saara loo qabtaa sheeko malyuun rooblaa dhasha asaan ku dhaha adeer dalqadeeda isii kana bax albaabka cunugayga ma u sheegi karta cunug saana loo qabtaa maba dhihi kartaan ku dhaha sheeko adeer bahdil kuma dhino intaasaana kuugu dambaysay maxaa faa'iide waa baasir abbaa cunuga fiiri maanta waxaa ciil qaba mataqaanaa ninka xoolihiisa maqan yahay lacagta laga dhacay guriga laga eriyey dalaaqadii laga qaatay la dulleystay shalay intii la haayay lagu hor bahdilayo social media live anoo ku jiraan ku bahdilaayay adeer macaane ninkaas maantay adigaa ciil qabtaani wax ciilama qabin because gurigaygaan joogaa still saana u qurux badanahay anaa ku eriyey dalaaqadayda cunugayga madaxiisaa kaaga qaatay eray bis aadhaad cunuga saana loo qabtaa saan looma qabto ninka mustaqbalka oo ay damci doono ogow cunuga aniga dhalay wax muu tilmaami kartid wax dhan muu tilmaami kartid ma dhihi kartid maamka xataa inta laga dhiga xaggaa la dhigaa ma dhihi kartid waxaa kuu soo haray aniga markaan guursanayey wax walba calaf weeye calafka ilaah baa adeega laakiin naagna waa naag nolol ku jirto gaariyaha oo nadaafad leh naagna waa naag aan nadaafad lahayn oo nolosheeda baad ka cararayso feristii ay gurigeeda igu casuuntay wallaahi bilaahi tallaahi hunguri inuusu iga gelin naagtaas gurigeeda suu yahay waddanka 3 sanaan joogaa bay tiri maxaan iska habeeyaa iska kala hagaajiyaa 3 sano maahee hal sano haddaad joogtaan ku yidhi gaarinimada waa loo kala dhashaa soo wax fahamtay maaha guur baad sheegaysaaye anoo wadaadahoo masaajid ku jira bay xataa guur iga diiday taqayb moonada saaxiibtinimaan kula deganaa taqayb moonada dadkan ma yaqaanaane 3 bilood markaan la deganaa waxaan ku yidhi caawa hadday ilmo ku yimaadaan maxaad ku fikeraysaa ma wacal baad rabtaa inaad dhabarka saarato soo wax fahamtay maaha saasaan aan ku xalaalsado sababtoo ah nin ilaahay ka baqayaana 3 biloodna waxa weeye rabitaanka aan rabay baa i qaaday runtaa wanaagsan sax ma fahamtay sax sicirkaa ku qabtay aan kula deganaa
soo fahanti maaha gabadheeda yartaa Ethiopia joogta Ethiopian baa dhalay anaa biili jiray waa wacel miya wacel wey anaa biili jiray sax ku soco Ethiopian baa dhalay baan ku yidhi nin Ethiopian soo wacaa dhalay nin dadkana waxay ku tiraahdaa aabihi Norway buu joogaa aabaheed Ethiopian baa ka dhalay baan ku yidhi anagoo saas ku og baan meher xalaala ku qabanay xoreynay waxaan ku yidhi nin reer magaalaan ahay nin xamar ku soo koray baan ahay guryaha mukhtaaro aan kaa dabageeye codkii waxay daaraysaa maalinkii ugu dambeysay isoo wicis maxasta ay dhahaysay ninkaan igala hadal oon aan bahdilaayo oo dhahaysa naagta coday duubaysaa adna ka duub maxaa xasuusataa codkii waaye anna iyadu waa ka duuba laakiin ani dadka codadkooda ma soo dhigo aniga kula hadlaya codod baan ka hayaa